Ma rabtaa in aad guulaysatid? Daawade, waxa aan mowduucan kaga hadli doonaa guusha. Guushu way macno badan tahay, mana lahan qeexitaan u gooni ah oo la isku raacay. Dadka intoodii badan waxay baadigoobaan guusha, waxayna ku kala aragti duwan yihiin fikradahooda ku aadan guusha, balse waxaa jirta hal ujeedo oo ay ka midaysan yihiin, taasoo ah in wax la gaaro. Guushu waa dareen ku dhisan farxad, waxayna timaadaa markii aad yoolkaada ama mid ka mid ah himilooyinkaada xaqiijisid. Haddaba, haddii aad si dhaba u doonayso inaad guulaysatid, waa in aad si qoto dheer u fahantaa fikradaha guud ee cayimaya fursadahaaga, kana dhigaya qof aan guulaysan. Si aad u guulaysatid, marka hore waa inaad samaysaa 5 qodob ee soo socota, kuwa oo lagu tilmaamo inay yihiin kuwa kuu sahli kara inaad guulaysatid. 1. Go'aan qaadasho. Waa in go'aamada aad qaadanaysaa ay noqdaan kuwa fulintoodii ka go'an tahay. Haddii aad markii hore shaki badan ka qabto fulitaanka go'aankan, ha qaadan go'aankaas ee dib uga fakar, maxaa yeelay jaranjarada guusha waxay ka bilaabataa kaabada koowaad ee go'aan qaadashada. 2. Curin. Waxaa xaqiiqo ah curintu inay ka mid tahay furayaasha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaari karo. 3. Ka faa'iidaysiga waqtiga. Arrimaha muhiimka u ah guusha nolosha waxaa ka mid ah inuu qofka yaqaano sida ugu fiican ee uu waqtigiisa ugaga faa'iidaysan karo gaarista yoolkiisa nolosha. 4. Rajada. Rajadu waxay ka mid tahay tilmaamaha muhiimka ah ee lagu garto ruuxa guusha gaara. 5. Qaladaadka oo wax laga barto. Qaladku ma ahan dhammaadka nolosha, mana ahan dhammaadka rajo kasta, balse kaliya qaladku waa dugsi ay qasab tahay in qof kasta maro, taana loo baahan yahay in wax laga barto lagana faa'iidaysto. Ugu dambeyn, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dadaalo wuu gaaraa. Adigana waa inaad la timaadaa dadaal, karti iyo dhabar adeeg, allana aad ka baridaa inuu ku siiyo guul. Daawade, waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo socda ee aan soo gelin doono. Mahadsanid.